السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركا يوالكين مهدي ميعاد قفكم مركو وحبرانيو إنو أفريكا كبرتو يا إنو جامعة يوروب تكبرتو يا إنو جامعة مرايكان كبرتو علمي وحموس كبدلا كمبيوتر ساينس كبا كالا مكروحة ربطها اللغة إنجليزي كانت بريتي luqadda ingiriisiga wadankiina dad ku baratid wadanka ama Djibouti ama Soomaaliya ha aado iyo inaad ku baratid Mareykan iyo Yurub ama inaad Mareykan iyo Yurub ku baratid horta Mareykan dad ku baratid waxa dhici karta kelmadu waa sidii imika good iyo bad waa laba kelmadood oo ingiriisiga marka labada kelmadood sida loogu nudqiyaa yaa dhici karta inay kala duwanaadeen laakiin macnaha isma bedelayaan computer science ka ama programming ama development kuna waa saasile may ku xiran tahay wadan inaad ka dhigatid in wadan kale ka fiicnaan doon saa waxaan ku leeyahay waqtigii jaamacadaha la gali ardaydana marka qaar kood markay arkaan anigoo ka hadlaya computer science iyo wixii development ku saabsan ayaa su'aalooyin ay soo weydiinayaan jaamacadda Hindiya ama jaamacadda Turkiga keeba wanaagsan horta labada wadanba waa laba wadan oo wadankii aad ku dhalatay hadda af Soomaali tahay wadankaagi maaha mid kastaba shuruud buu iska leeyahay wadanka Turkiga haddii aad waxbarasho u tagaysid intooda ugu badan waxay ku qasbayaan inaad af Turki inaad baratid oo afkooga inaad baratid marka sanad iyo bard iyo in ka badanba nimbo intay ku qaadato isaga ku xiran tahay Hindiyana iyadana waxa wax lagu bartaa waa af Ingiriisiga marka af Ingiriisi dad si garanaysay waad gali kartaa af Ingiriisi haddaanad garanayna waa inaad dib aad ugu dhigataa master saas leegna jaamacadaha computer science ka si loo galaayo way adag tahay oo ninkay kula hadlaya ayaa jaamacada Al-Qaahira computer science qaybteeda ayaan ka soo baxay laakiin waxa jira mahadyaal ama private waxyaabooyin meel aad ka dhigin kartaa saas leeg way jiraan marka wadan kasta oo tagtid obstacle iyo caqabadooyin ayaa ku soo food saari doona haddii afka aanad ku dhiganayn hadduu afki yahay imika Djibouti oo kale haddii aad Faransiis xaggan wax ku dhigatay oo wadamo Senegal iyo wadamo Afrika ama Tunisia aad tagtid way dhici kartaa inaad jaamacadda markaaba gashid waayo luqadan aad ku soo dhigatay iyo luqadan aad wax ku baranaysid ayaa isku mid ah marka burs dad heshay ama minxada dad heshay oo luqadu tii uun tahay hadad carabi ku dhigatay oo Yamanta ama waxyaabo Yamanta imaka way baabaaday Allah soo celiyay wadamo kale oo Carbeed aad rabtid inaad wax ku baratid oo luqadii aad ka baxna ay tahay marka way ku dhibiranaysaa laakiin marka ay luqadii aad ku baratay iyo luqadalka aad u tagaysid markay kala duwan tahay taa sanad ama 2 sano ay ka qaadan malaha inta luqada dhiganaysid jaamacadda ma tan baa wanaagsan mise tan kala wanaagsan jawaabtaana waxa weeyaan jaamacad kale ka wanaagsan aniga fikradayda waxay la tahay inay jirin inay ku xiran tahay adiga dadaalkaaga iyo kartidaada maanta haddii qof maskax leh oo waqti ay ka faa'iideysan garanaya haddii la geeyo jaamacad la xaqirayo waxaa dhici karta inuu wax farabadan uu ka faa'iideysto nin aan maskaxdiisuba ku filnayn oo dhalinyarnimadu ay qaadasana haddii jaamacadda adduunka ugu lacag badan maanta haddii la geeyo waxaa dhici karta inuu waxba ka faa'iiday waayo jaamacadana marka laga soo baxo suuqa shaqadu dadka waxay u tahay meel lagu kala baxo
lagu kala baxo waxay ka dhigan tahay waxbaa lagu dhiibi doonaa oo lagu oran doonaa waxaa samee wixii markaa haddii shahaado weyn aad haysatid oo wixii aad samayn karayn macna kuguma taalo shahaaday waxaa kale jira qof arday dugsigii sare ama liisee ama baagii qaatay oo duruuftu asmixi weyday inuu jaamacad sii wado kaana waxaan leeyahay adduunyadii ma dhammaan ama adduunyada dhammaadkeedu ma aha inaad jaamacad aad ka baxid maaha adduunyada wanaageedu inaad jaamacad ka baxid maaha jaamacad iyo jaamacad la'aanteed marka horta ugu horeysa risiqaagu qoran yahay marka kale labaad jaamacadani waa meel albaab wax ku furaysa oone ee ma aha wax iyada la'aanteed lagu liibaano ama lagu khasaaro dad baad garanaysaa maanta haddii aad liibaanta adduunya haddii marka qaarkood qof u arkayo lacag iyo hanti la yeesho dad baa jira maanta iyagoo waxba aanan dhigan aan hanti leh marka taa waxay ku tusaysaa in ayna jaamacaddu ayna ka dhignayn ta hodan lagu noqon doono ama ta lacag lagu yeelan doono waa qof kastaba maskaxda yar ee cad ee nagu dhex jirta nimbastu u maareeyo amba nimbastu u isticmaalo unbay ku xiran tahay kuma xinno jaamacadda x ama igarad kuma xinno kulliyadda x ama y kuma xinno meesha halka ama x ama y kuma xinno video ka horeysana waxaan ka hadlay ahayd kuwii kasii horeysay farqiga u dhaxeeya qof jaamacad ka soo baxay ama wax bartay iyo qof skills iyo xirfad leh maanta suuqu wuxuu u baahan yahay xirfad u baahan yahay shirkadooyinkii waaweynaa inaga Afrika iska daa shirkadooyinkii waaweynaa ee Google iyo Facebook iyo Microsoft ayaa si officially website-dadooda ama shaqooyinkooda u doondoonaya qof xirfad leh developer baa tahay web application ama mobile application way ku dhiibiyaan walkayo ma samayn kartaa mise ma samayn kartid haddaad samaynaysid ahlan wa sahlan swahili bienvenue haddii kala adeer agaa wax ka day markaa shirkadooyinkii waaweynaa ayaa sidaale wad mustaqbalka Afrikana way soo geli doontaa meel kastana way geli doontaa imakadan shirkada private ah ayaa dhici karta haddii aad u tagtood ku tiraahdid waal waxaan yaqaanaa videographer ama photographer baan ma garatay sawirradaan sameeyaa ama xirfadda caynkaasaan sameeyaa ama taasaan sameeyaa cidi kuma arnaso war horta internet ila hadal shahaadaadi ma seeta way dhici kartaa dadka qaarkood inay ku raadaan laakiin haddii maanta aad rabtid inaad wax isa soo saartid I don't believe qof saak oranayo ninkayga walaalkaan kula hadlayaa maanta suuqa waxyaabooyinka aan ku shaqeeyo 90% waxaan oran karayaa waa wixii aan YouTube iyo anigu isbaray weeyaan jaamacadda waxaad ka soo qaadaa waa sidii tilmaamo oo kale waa qofku tilmaamaya ima kaba soo qaad waxaad rabtaa qof baad ku aragtay kaba wanaagsan ama saacad wanaagsan baad ku aragtay markaas aad weydiiso waxaad ku tiri saacadda aleen ka soo iibsatay markaas ku ri dukaanka halkaas ayaan ka soo iibsaday markaa qofka uu ku tilmaamay dukaankii baad tagtay dukaankii baad ka aragtay saacad wanaagsan kaba wanaagsan shamiis wanaagsan sirwaal wanaagsan laptop wanaagsan wax fara badan oo wanaagsan wixii oo dhan waad ku wala amal fashay ama waad ka soo iibsatay markaa qofkani wuu ku tilmaamo wuxuu ku tilmaamay dukaankii buu ku tilmaamay laakiin wixii dukaan ku dhex jiray kuubu sheegay jaamacaduna waa saas leeg jaamacadu waxay ku oranaysaa waxa jira waxa baa jira jaamacadu waxa jira subject dhaqaalaha la raah waxa lagu oranayaa introduction of economic maxay ahayd hordhaca dhaqaalaha kale laakiin lagu ma oranayo dhaqaaluhu waa sida iyo halka baa la galaa iyo waxa baa la sameeyaa iyo shirkadaha way introduction kanu baa ku jira qof malaha حتى كسبيشاليستيga ama ka xile takhasus ku yeelanayay waxa dhici karta hadhow mustaqbalka markuu teeraanka u soo dhaadhaco ina wixii uu garanayay wax fara badan ka maqayn marka ma canaanin karto moolan kartid jaamacaddu wax kasta imay baramay jaamacaddu waa tilmaame way ku tilmaami tilmaamahana hadaad weydid de ma halaabaysid
haddaad heshidna wabilaahi wa nicma waa nicmad ku ziyaada weeyaan marka kii jaamacad helo allaha ku barakay kan jaamacad helinuna bilaa jaamacad la'aanteed wax waad baran kartaa mar horena waan soo sheegay youtube wax way ku jiraan koorshaal paid way jiraan kuwa wal af ingiriisiga way jiraan insha Allah anu saas leeg mustaqbalka waxaan ku tiri jiraa koorar fara badan oo paid course oo fara badan insha Allah waan sameyn doonaa waqtigu ii asmaxo marka intaas oo dhan wax waad ka baran kartaa laakiin muhiimka wax ugu weyn wax weyn wax baro ha joojine wax baro waxbarashaduna waxay joogsataa goorma maalinta saanacna lagu duuduubo maalinta aakhira lagu geynayo markaa bay joogsataa inta kale ma joogsato intaasaan kusoo gabagabeynayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu